السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وهذا توش داوديال كسور دوادا برنامج كألمة برشلي سويدن Community Integration Show. ما أنت برنامج كوحكاها ليا قبل يلقوا الصومالية إلى صحيح داي ودودي تبينشرة. قبل يلقوا الصومالية دو حربتا إني والد كده تعويسو. واحد تلها بريال ما أنا وحنا القيادة ما برشلي مربع information كبيحسين أما الوعي كلين كبيحسين. gabadheeda say ii sheegtay wadanka dhowr sano ay joogtaa hooyadeed bay la timiday aabaheed wadankeedu joogaa waxay tiri hooyaday ma ogola inaan makeup mariyo hooyaday ma ogola inaan duruub xidho natay washineed min jir waxay tiri hooyaday iyada sidii gabdhaha yaryar doonaysa inay isku xarabooto oo isku labisto marka mar walba way iga daadisaa makeup-kan soo gato dharka way iga saartaa waxay tiraahdaa dadku waxay leeyihiin waad isleekaateen adii aynantaadii markaa jooji dharkan aad xidhanaysid iyo aruursadana dila aadaysid inan yar baad tahay markaa runtii waxaan doonayaa fiideogan inaad sii shaargaraysaan oo hooyadaasi bal intayna too late ku noqon way isgaranaysaa Sweden halkay ka degan tahay way ogtay ciyaalkeeda dhaqankiisa way ogtay inay ay fahmi doonto qofka laga hadlayaa inay tahay walba uu geelmihiisa wuxuu ku dhawaya ama wuxuu diidan yahay marka gabadheedu waxaan go'aansaday inaan samadka guursado nin aan guursado bay tiri si aan xurriyad u helo inaan makeup marsado iyo inaan duruubiyo xidho marka walaal waxaan kuu sheegayaa gabadhay intaynan intaadii ka dhex toosin inuu ku dacweynin oo reeristaba yaabaynu nahay hadhow marka suusan meelan ama uusan meelan socialka inooga tagto waad ogtahay qofka ilmahaaga ay tahay qof walba uu ogyahay qofku wuxuu diiday marka waxaan ku odhan lahaa la fadhiiso alxamdulillah dhiinataadu hadday diracyo rabto iyo makeup inay rabto ciyaal wax ka daran qaata daroogo nolosha ka dhacay baa jira marka waxaan rajaynayaa hooyada in layla raadiyo oo muxuu haytooy ay xishootay ilmaheeda ay doonaysa inay ishallayso oo xurriyad ay u hesho nin isku qaado waan ka xumahay ciyaal badan baa nolosha ku nool oo guriga iyagoo 15 jira ka cararaya oo guursanaya hadhowna ilmo yada wada taalalka 20-kiiba gaadhin dacdada kale oo idin hayaa daawadayaal waxa weeye dacdo ka dhacday Sweden iyaduna maalin dhaweyd bishii January iyo bishanba waa la isdhex wadaa oo Swedishka journalistayaasha ama social media Swedish aad uga hadlayaan nin waxa jira ka shaqeyn jira muxuu haytooy ciyaalada xanaanadooda oo 14 jir ah ninka 14 jirkii 12 sano ka soo shaqeyn jiray meel xanaana ah ciyaal buu kusoo farxumay hadana shaqadii buu bedelay meel wuxuu ka bilaabay shaqada Tumba la dhaho ama Botkyrka oo magaalada Sweden ka mid ah Stockholm ku taala ninkii ciyaal buu ku farxumeeyay midkii ugu horeysayna maaha ala kulli xaal ninkii uu qirtay maxkamadda markii la soo hor istaajiyay waana la xukumayaa laakiin wali dacwadiisa baa socota adoo wadankan wuxuu ku fiican yahay qofku midku dambi galo waa la soo ogaan karaa wixii lagu xukumay iyo wixii sameeyay waalidiin baa intay suursadeen guriga ugu tago ninkii jafta ka soo saaray waayo maxkamaddu waxay yiraahdeen intaan dacwadu kugu socoto gurigaagiiska aad ninkii markii la soo daayay waalidka intay suursadeen bay soo dileen soo jirdileen ninkii waa la soo qabtay waa la xiray waxay yiraahdeen kuma soo keltid gurigaaga maadaama dadkii ogaadeen